nikaax furiin iyo kalaabasho. nikaax furiin iyo kalaabasho. haya wiilkayga aryaa macna uu soo waa fahmay macnaha furiinka waxaan kala fahmay waxa loola jeedo rajactu laakiin nikaaxa ma fahmin wax loola jeedo. ha waa su'aal wanaagsan. nikaaxa waxa loola jeedaa qaabka sharciga oo ninka naagtu guursanayo qandafil daran adana mar labaad ninka naagtu guursanayo. macallinow ilaa hadda anigu ma fahmin. tusaale ahaan waxaan ku leeyahay asadow waxaan kuu guuriyay gabadheeda waxa aadna ku jawaabaysaa aniga waan aqbalay. sidaas ayay ku noqonaysaa xaaskaaga. macallu uu soo wili ma fahmin. war tusaale ahaan waxaan ku leeyahay asadow waxaan kuu guuriyay gabarteyda. waa ka aqbalay. aqbal ha maxaa aqbashay? gabadhaada inaan guursado. aniga gabadheeda ha fur gabadheeda gabadhii fur qanda duf badan fur aya macallin ma furaayo sideen u furaynin aniga 10 oo kaliya ayaan ku sharaxay ulama jeedin inaan gabadheeda kugu nikaaxo. macallin aniga hadda gabadhaada ayaan guursaday dad 10ka noogu sharaxaysay amaan inta fasalka fadhisana marqaati waay xaabay sax soo maaha sax abu asad wa istaisha ilaaha ku barakaayo maalna waa haysata ilaahay caruur ha ku siiyo amiin. asado arooskiina aroos lagu nagaado lagu waara ahaada صبوحا قتف على في قتف على في صبوحا قدانا يا بجري صبوحا قتف على في قتف جوجي قندا خلق له أنا نقف ديسو حلوس ويناتي أدينا هاد فر ور هاد فر أنكو يري ما يمعلن مفرايا مفريست أوكي دقيسو hadda waxaan idin sharaxayaa 10 furiinka waa inaad si fiican u fahantaan mawduuca gaar ahaan asad markuu qofku furaayo xaaskiisa waa inuu yiraahdaa sacdiya saabuunay waad iga furantahay ma maqasheen waa adiga asad hadda dhaqsiga daba dheh sacdiya saabuunay waad furantahay ayaa macallin ma furaayo ya soo istaag qanda duf badan oo duf ku baxay soo bax maamulka u tagaynaa soo bax aw imaamulihii lagu yare ninkan noo kala garqaad wuu idibay tiibi shahadishe balaayaha ku dhacday waru kaadiye maxaa dhacay sidee wax u jiraan ma ogola inuu gabadheeda furo xidid miyaatiin see camal maamule waxaan u sharaxayaa 10 ka hadlaya nikaaxa fursadii ayuu ka faa'iideystay asadna wuxuu guursaday gabadheeda haddana diyaar u maaha inuu furo sax idagayso asad waa in aad furtaa gabadha macalinka haddaad furi waysa gabadha waxaan wacayaa aabaha iyo faamilkaaga iyo qawaacid may macallin waa ogolahay waan furayaa gabadha mudana maamula adiga darta hadduu aabahay maqluub garaacaya saddex ku furo gabadheeda waa inuu saddexdeeda ku furaa gabadhaada sacdiya saabuun waan furay haddana waa furay maamula hadda ma bixi karaa sax naga tag wasqaanyo dhugo dhowrkiisa macallin waxaan ku weydiinayaa maxaa loola jeedaa ereyga nikaax habarta buufkeeda u sheeg